waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa shaacisay shabakadda fududeynta dhaqaalaha iyo hubka ee kooxda Al-Shabaab kuwaas oo door hogaamineed ku dhex leh Al-Shabaab isla markaana qaabilsan xiriirka kooxda Al-Shabaab iyo shirkadaha Soomaaliya ee lacagta laga qaado. Shabakadan oo xayiraad lagu soo rogay ayaa sida ay waaxdu sheegtay waxa ay ku howlanayeen soo iibinta hubka, fududeynta dhaqaalaha iyo qorista askarta kooxda Al-Shabaab dhexdeeda. Marka laga soo tago inay hogaamiyayaal ka yihiin Al-Shabaab dhexdooda, fududeeyaashan ayaa sidoo kale xiriir toos ah waxa ay la lahaayeen saraakiisha Al-Shabaab ee horey Mareykanku ugu daray liiska argagixisada. waaxda maaliyadda waxa ay diiradda saareysaa aqoonsiga iyo carqaladeynta shabakadaha sharci darrada ah ee Al-Shabaab ee ka howlgala Bariga Afrika, ayuu yiri Brian Nelson oo ah kaaliyaha xogayaha maaliyadda Mareykanka ee dhanka argagixisada iyo sirdoonka maaliyadda. Waan sii wadi doonaa inaan qaadno tallaabo ka dhan ah soo gelinta hubka sharci darrada ah iyo dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ururinta Al-Shabaab iyo kuwa kale ee xiriirka la leh Al-Qaacida. waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Al-Shabaab ay maalgelisay dadaalada Al-Qaacida ee caalamka idil oo ay ku jirto inay lacag u qaybiso kooxaha kale ee Al-Qaacida xiriirka la leh. waxay intaas ku dartay in Al-Shabaab ay sanadkii soo xareyso dakhli gaaraya $100 milyan oo ay ka hesho ilo dhaqaale oo kala duwan sida lacago ay ka qaadaan ganacsatada iyo shakhsiyaadka, canshuurta la saaro badeecadaha iyo fududeynta ganacsiyada sharci darrada ah. Dakhliga kooxda ayaa waxa uu taageeray awoodda kooxda, hoggaanka iyo weerarada ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri war ka soo baxay waaxda maaliyadda ee Mareykanka. Al-Shabaab waxa ay horey u qorsheeyeen inay kala qaybsanaan ka dhex abuurto dowladda federaalka iyo xoogagga mucaaradka ee Muqdisho si ay dib ugu dhigto doorashooyinka heer federaal. Haddaba magacyada shakhsiyaadka Mareykanka uu shaaciyay ayaa waxa ay kala yihiin Cabdullaahi Jeeri. Dhamaadkii sanadkii 2021, Cabdullaahi Jeeri waxa uu si sharci darro ah hub u soo geliyay Al-Shabaab. Jeeri waa madaxa Al-Shabaab ee keenista hubka, waxa uuna Al-Shabaab hub ugu keenay gudaha dalka iyo sidoo kale hub iibiyayaal shisheeye ah oo badankood ay ku sugan yihiin dalka Yemen. Jeeri waa isku xiraha Al-Shabaab iyo ganacsiyada gudaha Soomaaliya, waxa uuna soo ururiyaa lacagaha canshuurta ah oo ay kooxdan ku soo rogto ganacsatada. waxa uu sidoo kale xubin ka yahay golaha shuurada kooxda, isagoo dhanka kalena mar taliye u soo noqday cutub ka tirsan ciidamada Al-Shabaab. Khaliif Cadalle waa madaxa maaliyadda Al-Shabaab ee lacag ka soo ururinta ururada aan dowliga ahayn ee loo yaqaan NGOs-ka, waxa uuna si toos ah uga warbixiyay amiirka kooxda ninka loo yaqaan Axmed Deeriye. Khaliif Cadalle waxa uu horey xubin uga ahaa kooxda Mahad Karatay uu hogaamiyay Al-Shabaab dhexdooda, waxa uuna xiriir toos ah la lahaa Mahad Karatay. Dowladda Mareykanka ayaa Mahad Karatay liiska argagixisada ku dartay 10kii bishii Abriil sanadii 2015. ilaa inta laga gaaray 2018, Cadalle waxa uu ahaa sarkaal maaliyadeed oo kaalintiisu tahay inuu u dhaxeeyo Al-Shabaab iyo ganacsiyada sharciga ah, isaga oo qaabilsanaa inuu soo ururiyo lacagaha waaweyn ee ganacsiyada lagu soo rogo. waxa uu sidoo kale qaabilsanaa inuu dhexdhexaadiyo khilaafyada soo kala dhexgala qabiilada iyo inuu dagaalyahano u soo qoro kooxdan. Dhamaadkii 2017, hogaamiyayaal sare oo Al-Shabaab ah oo uu ku jiro Cadalle ayaa diyaariyay 600 oo dagaalyahan inay taageerto kooxda Al-Shabaab, waxaana uu bixiyay lacag la siiyay qabaa'ilka ay ka dhasheen kooxahaasi. Dagaalyahanadaas ayaa waxa ay ahaayeen caruur ay da'doodu u dhaxayso 10 ilaa 15 sano oo laga soo ururiyay xaafadaha si loogu diyaariyo howlgallada mustaqbalka ee kooxda Al-Shabaab. Xasan Afgooye, Mareykanku waxa uu ballan qaadayaa ilaa $5 milyan oo la siinayo cid kasta oo keenta akhbaar ku saabsan Xasan Afgooye oo ah hogaamiye muhiim ah oo ka tirsan Al-Shabaab, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay waaxda maaliyadda Mareykanka. Afgooye waxa uu madax ka yahay shabakad maaliyadeed oo dhaqdhaqaaqyadeeda ay ka mid yihiin lacagaha lagu soo ururiyo sadaqada beenta ah, baadda iyo afduubka si loogu taageero Al-Shabaab. Afgooye waxaa loo arkaa inuu muhiim u yahay sii socoshada howlgallada Al-Shabaab, ayay tiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay waaxda maaliyadda Mareykanka. Afgooye waxa uu sarkaal sare ka soo noqday waaxda maaliyadda ee Al-Shabaab markii uu hogaaminayay Mahad Karatay, waxa uu kadib madax ka noqday waaxda maaliyadda ee Al-Shabaab. Xasan Afgooye ayaa sidoo kale mas'uul ka ahaa xiriirka Al-Shabaab ee shirkadaha gudaha, waxa uuna si gaar ah u qaabilsanaa wada xaajoodka isagoo wakiil ka ah Al-Shabaab. Cabdikariim Xuseen Gaagaale waxa uu ahaa ku-xigeenka madaxa maaliyadda ee Al-Shabaab markii uu xukumayay Mahad Karatay. Cabdisamed waa mintid ka tirsan Al-Shabaab oo xiriir dhow la leh golaha hoggaanka sare ee kooxda. Sanadii 2010, Al-Shabaab ayaa bixisay qarashkii ku baxay shahaadadii jaamacadeed ee Cabdisamed oo ay ku jirto safarka iyo lacagta jaamacadda. Sanadkii 2018, Cabdisamed waxa uu howlgal dabagal iyo cilmi baaris ah u sameeyay kooxda Al-Shabaab. Cabdiraxmaan Nuurey waa isku xiraha Al-Shabaab iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya, waxa uu sidoo kale keydiyay, kala wareejiyay, isla markaana uu been xalaaleeyay lacagta dhijitaalka ah ee kooxda Al-Shabaab.
nuurey waxa uu lacagta ka soo ururiyaa madax-hoosaadyada maaliyadeed ee al-shabaab una gudbiyo madaxda sare ee maaliyadda kooxda. Mareykanka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday shabakadda hubka ee al-shabaab. Qoraalka ka soo baxay waaxda maaliyadda ayaa lagu sheegay Maxamed Xuseen Salaad, Axmed Xasan Cali Suleymaan Mataan iyo Maxamed Cali Badaas inay qayb ka yihiin shabakadda al-shabaab u qaabilsan hubka sida sharci darrada ah loo keeno ama looga keeno dalka Yemen. Sanadihii u dhaxeeyay 2017 ilaa 2020 doomo uu leeyahay Mataan ayaa al-shabaab ay u adeegsatay inay hub badan ku soo geliso Soomaaliya kaasi oo laga keenay dalka Yemen kadib heshiis dhexmaray labada dhinac. Salaad ayaa isna la sheegay inuu shirko ganacsi la yahay Mataan uuna u fududeeyo in hub al-shabaab u socda la soo geliyo Soomaaliya. Hubka ay Soomaaliya soo geliyaan ayaa waxaa ka mid ah miinooyinka, walxaha qaraxyada laga sameeyo qoryaha AK-47-ka. Muddo 5 sano gudaheed ah, Salaad ayaa in ka badan 700,000 oo dollar ka helay shakhsiyaad hubka soo iibsada oo saldhigoodu yahay Puntland. Waxa uu sidoo kale isku xiraa dadka Yemen hubka ka keena iyo kuwa iibsada ee ku sugan Puntland. Badaas waxa uu xubin ka yahay al-Qaacidada Jasiiradda Carabeed ee dalka Yemen, waxa uuna ku jiraa shabakadda al-shabaab u qaabilsan hubka sida sharci darrada ah looga keeno Yemen. Waxa uu fududeeyay hubka laga soo dhoofiyay Yemen ee loo soo diro al-shabaabka Soomaaliya. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa si waafaqsan waaxda maaliyadda waxa iyana xayiraado ku soo rogtay shakhsiyaad kale oo xubno ka ah ama hoggaan ka haya al-shabaab, kuwaas oo kale ah Maxamed Mire, Yaasir Jiis, Yuusuf Axmed Xaaji Nuurow, Mustafa Caato iyo Maxamed Cabdi Aadan. Haddaba maxay ka dhigan tahay xayiraadan ay Mareykanka ku soo rogeen xubnahan ay sheegeen inay la shaqeeyaan al-shabaab? Xayiraadda ayaa waxay ka dhigan tahay in laga bilaabo maanta dhammaan hantida shakhsiyaadkan iyo wax kasta oo ay leeyihiin si toos ah ama si dadban wax ka badan 50% hantidaas oo taala Mareykanka ama ay gacanta ku hayaan shakhsiyaad Mareykan ah ay tahay in la xayiro, laguna soo wargeliyo xafiiska OFAC ee waaxda maaliyadda Mareykanka. Waxaa intaas dheer in la mamnuucay in lala macaamilo shakhsiyaadkaas ama wax xiriir ganacsi ah lala sameeyo. Arrinkan ayaa ilaa iminka waxaanan ka hadlin ururka al-shabaab dhexdooda, iyadoo dowladda Mareykanka dhowr jeer hore sidan oo kale ay sheegtay inay xayiraado ku soo rogtay xubno sare oo ka tirsan ururka al-shabaab.